kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa xog xasaasi ah oo tilmaamayso in xilka laga qaadayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raagi. Haddaba waa kuma shakhsiga lagu bedelayo dowladaha gadaal ka riixayo in xilka qaadis lagu sameeyo taliyaha laguna bedelo wasiir haatan kamida xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. sidoo kale Cabdirasiid Janan oo shir jaraa'id ku qabtay xerada UK magaalada Balad Xaawo waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah xilli uu sheegay in markaasi uu soo dhaweynayo ciidamo la tilmaamay in markaasi ay ka goosteen dhinaca Jubbaland una goosteen ciidanka uu markaasi horkacayo Cabdirasiid Janan. haddaba iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee guud ahaan magaalada Balad Xaawo ayaa halkan idinkula wadaagi doonaa, balse marka koowaad soo dhow muuqaalkan like saar siina share gare, sidoo kalena haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe-ka iyo followda hanaga hilmaamin. waa tahay warar soo baxaya oo naga soo gaaraya filla Soomaaliya waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu haatan ka fakarayo in uu xilka ka qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raagi. uuna xilkaas u magacaabi rabo ama uu rabo inuu u magacaabo wasiirka dekedaha gaadiidka badda Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo dadka badankood u yaqaanaan madaxana furan. sidaan xogaha ku helayno madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu cadaadis xooggan kala kulmayaa dowladda Turkiga oo markaasi hore uga carootay in xilka wasiirka gaashaandhigga laga qaado wasiir Cabdiqaadir. waxayna hadda Turkiga dalbanayaan in wasiirkan laga dhigo taliyaha ciidanka xoogga dalka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo aan ku qanacsanayn cadaadiska Turkiga kaga imaanaya ayaa la sheegay in hadda uu ka fakarayo una wado batashiyo ku aadan sida ay suurtagalka u tahay in Cabdiqaadir Maxamed Nuur uu u magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka. madaxweyne Xasan Sheekh sidoo kale wuxuu ka fakarayaa saamaynta ballaaran ee ka dhalan karto magacaabista wasiir Jaamac ee taliyaha ciidanka xoogga dalka. gaar ahaan dowladda Mareykanka si weyn ayay u diidan tahay arrintan. wasiir Jaamac horeyna madaxweynaha way ugu cadaadisay in uu ka qaado xilka wasiirka gaashaandhigga. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markaasi waxaa haysto laba cadaadis, waa laba daran mid dooro. labaduba ay kala duwan yihiin, waxay looga imaanayaan dowladaha Turkiga iyo Mareykanka, kuwaasoo midna ay gadaal ka riixayso oo wadato wasiir Jaamac, halka dowladda kalena ay diidan tahay in ninkan ciidanka uu ku dhex milmo lagu soo daro. wasiir Jaamac ayaa la tilmaamaa in uu yahay nin si weyn ugu xiran sirdoonka dowladda Turkiga, waxaana ninkan uu si weyn markaasi u raba oo dusha ku wadata dowladda Turkiga oo horey uga carootay in wasaaradda gaashaandhigga laga bedelo. waxaana Turkiga hadda dadaal ku bixinayaan in taliye ciidan markaasi laga dhigo. shacabka Soomaaliyeed si weyn ayay uga falceliyeen arrinkan marka warkan uu soo shacbaxay ee ku aadan magacaabista taliyaha ciidanka ee loo wado wasiir Jaamac. dadka intooda badan way ka digeen in ninkan ciidanka loo dhiibo, iyagoo ku tilmaamay nin shaqo kala haysta oo ciidanka markaasi fashilinaya dowladdana magac xumo markaa u soo jiidaya. waayahay haddaba taageerayaasha wasiir Jaamac waxay ku doodayaan waxay ku doodayaan in xilkan uu u qalmo, iyagoo daliishanaya khibradda shaqo ee markaasi uu leeyahay, taasoo ay u arkaan sabab ku kalifayso in uu dib ugu soo laaban karo hoggaanka sare ee hay'adaha amniga. horey ayuu u soo noqday wasiirka gaashaandhigga, wasiirka cadaaladda iyo agaasime ku-xigeenka hay'adda sirdoonka iyo nabad-sugidda qaranka ee NISA. wuxuu xilal sidoo kale diblomaasiyadeed ka soo qabtay safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga. balse hadda dadka markaasi dhaliila iyo falanqeeyayaasha arrimaha amniga waxay ka digayaan magacaabista shakhsi si weyn markaasi ugu xiran hal saaxiib oo shisheeye ay waxyeello u geysan karto danaha qaran ee Soomaaliya, ayna sii horin karto khilaafyada siyaasadeed ee markii horeba markaa jiray. saldhigga xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Turkiga ayaa ah heshiis taariikhi ah oo 10 sano ah oo dhanka difaaca, kaasoo Soomaaliya iyo Turkiga kala saxiixdeen bishii February 2000
24 heshiiskan Turkiga waxaa lagu wareejiyay mas'uuliyadda tababarka iyo sidoo kale qalabaynta ciidamada badda Soomaaliya si loo sugo amniga xeebaha dalka oo aad u ballaaran kuwaasoo la aaminsan yahay in uu ku jiro khayraad badan oo shidaal iyo sidoo kale gaas ah. Haddii aan u weecanno dhinaca gobolka Gedo, Cabdirashiid Janan, taliyaha ay dowladda federaalka dhowaan u magacowday gobolka Gedo ee NISA, ayaa maanta Baled Xaawo ku soo bandhigay ciidamo uu sheegay in ay ka soo goosteen maamulka Jubbaland, walow wax caddayma oo muujinaya in ciidankan ay ka goosteen dhinaca Jubbaland aysan jirin, balse ciidamadan oo markaasi laga dheehan karay in ay wataan hubkooda ayaa waxaa xerada UK oo ay haatan ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya ku soo dhaweeyay Cabdirashiid Janan. Isagoo la hadlayay ciidamada, waxa uu sheegay in haatan wixii ka dambeeya ay ka mid yihiin ciidanka qaranka loona bilaabayo mushaar toos ah. Ma jiro ilaa hadda wax wara oo ka soo baxay oo Jubbaland markaasi ku aadan ciidamadan la sheegay in ay ka goosteen ee maanta lagu soo bandhigay xerada UK ee duleedka magaalada Baled Xaawo. Dhinaca kale waxaa degan maanta xaaladda magaalada Baled Xaawo kadib dagaal qaraar oo shalay halkaasi ka dhacay, sababayna khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah. Waxaa hadda gacanta si buuxda ugu haya magaalada si guud ciidamada Jubbaland oo lagu soo warramayo in ciidanka dowladda federaalka ilaa hadda ay u suurtageli lahayd in ay gudaha u galaan magaalada oo keliya ay ku sugan yihiin xerada UK ee duleedka magaalada Baled Xaawo. Waxaana war-saxaafadeedyo ka soo kala baxay dhinacyada Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka midba midka kale uu ku eedeeyay in isaga uu ka dambeeyo dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada Baled Xaawo. Haddaad nala soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalkan, fadlan like saar, siina share garee si dad badan uu u gaaro.